xiisadaasi sheeganaysa oramada dhulka Soomaalida kilka shanaad ay degto ay awal markay war ka bilaabatay waxay ka bilaabatay cilada koowaad meesha leedahay Soomaalida iyo oramada deegaan ayaa dagaalka ugu horeeyay ee ka bilaabatay oo oramada sheegatay in leeyahay iyada leedahay Soomaalidana waxay ka leedahay meesha ay jireen halkaas oo wixii dambe niman oramaa ay imaadeen guri uu leeyahay nin mareexaana oo dhahan dhulka ku qorteen magacooda kadib markay magacooda ay ku qorteen intii uu baxay uu qori soo qaatay ninkii oramada uu meesha ku dilay xidmada halkaas ka bilaabatay barnaamijka ugu socday wuxuu u wareegay dagaalkaas leeyahay ka bilowday dhanka loo yaqaan Gildir iyo Salaxaad iyo dhulkaas marka dambe dhulka inuu ku waashaday marka dambe oramada soo duushay waxay imaatay meesha leeyahay Salaxaad meel u jirto 50 kilomitir oo leeyahay qowga fiiq marka halkay imaatay isku soo aruursatay waxay tiri ilaa waxaan leeyahay aniga meesha leeyahay guri inay agaakaro dib ana iskale waan gartay marka ciliilisahan dadka guud ee dhinto waa imisa dad badan baa la ii sheegay in halka ay ku geeriyoodeen dhankan hadda nadiil marka la yiraahdo dhanka Soomaaliya marka la yiraahdo maalinka oreeyay sagaala ka dhimatay maalinkii dambeena lixaa dhimatay waya hadda dhinaca kalena maxaa xoga ina ahaysan khasaare gaari dhankan hadda marka la yiraahdo Salaxaad marka dhankan Gildir Soomaali ayaa waxay oramada ku weerartay isagoo malaha Gildir iyo Salaxaad meel u dhaxay ninkaas ka tirsan maamulka Soomaalida ee maamulka Soomaalida ahaa istaaf buu watay laba baabuur watay labadii baabuur ay watay waxa lagu dilay istaafkiisa saddex laga dilay afarna ku dhaawacantay isagana gacan buu dhaawac ka gaaray waa la qaaday dhaawac waxa la diiday meesha la xeerar waya maxaa ayagana gaaray qoomiyada oramiyada maxaa khasaaraha u gaaray oramada hadda jabadana gaaray meeshan hadda la Salaxaad waa lagu weer waxa lagu dilay ilaa konton iyo afar qof laga dilay yaa ka dilay marka ciidamada miyi booliska ayaa ka dilay dawlad deegaanka Soomaali galbeed iyo qoomiyada oramada ismaamulkooda wax wada hadal ma ka yeeshan arintan mise jirta faragelin inta kaga timid dawladda dhexe Itoobiya wax kale yimid oo faragelin ma jirto wax wada hadal dhacayna ma jirto markii ay dhacday arrimahaasi oo ninkaas sargaalka meesha lagu weeray dawladda maamulka Soomaalida waxay sameysay waliyaada howlgal ciidamada waxay geysay xuduudda oramada iyo Soomaalida loo kala qaano sida miyi boolis ciidanka la yiraahdo iyo ciidamada maleeshiyaan oramada oo halkaas macnaha ku xoolo qaranayay inay soo socoteen soo weerarto degmada Salaxaad iyo degmada la yiraahdo Raaso iyo inay soo socotay waxa lagu wargeeyay ciidamada miyi boolis iyo maleeshiyaan waayahay waxaan ka rabaa in ilaa 40,000 oo qoys ay barakaceen baan maqalnay wararkii ugu soo gaaray ma Soomaalidu baa dadka qaxay mise way ku jiraan qoomiyada oramada waxa qaxay ayagana labada dhanba Soomaalida u badan oo Soomaalida dhanka oramada marka hore aad ugu jirtay oo Soomaali fara badan oo qolada marxaanka karanaha qolada leeyahay muralaha qolada fara badan oo dhac deganaa jira qoomiyada oramada ugu yaraan ilaa 28 baa la keenay jigjiga sidii la sheegay xalay intii kale meelay kala joogaan in la soo qaada laga yaabaa in halka lagu aaso dadka la laayay ehelkoogii in badan baa halkan joogta Hargeysa joogta Boorama joogta Gabiley joogta dalkeena sidoo u dhan yahay kala joogta waxaan farayaa dadweynaha reer Jamhuuriyadda Soomaaliland inay dadka oramada ah ama Itoobiyaanka halkan jooga aanay wax dhibaato u geysan waa ogsoontiin xalayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kontaroolka Caabudla nina lagu dhaawacay meedkoogu wuxuu yaalaa talaajada muxuu Hargeysa dhakhtarka Hargeysa dadkii bay laayeen shariic aqaladii bay gubeen lacagta baawurtayadii bay gubeen ayaga oo 3 milyan ay joogaan dhulka Soomaalida kililka shanaada Itoobiya maxaan ku raasay Soomaaliland iyo Djibouti iyo Soomaaliya 4 milyan oo Oromaa jooga haddana boqolkii qof ka dhex ganacsanayay bay konton gowraceen waxa sababay jaahilnimadooda ayaga la weydiiyay waa cadaawad ay noo hayeen annaguna waxoodii waanu diidnay Itoobiya waan ka marmaynaa ma haddaan mirooga haysano